السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتيني labaad ee barashada kooraskii MVC-ga qaybtan labaad waxaan ku arki doonaa sida loo sameeyo controller model iyo view inagoo ku dhex qori doono mid walba tusaalayaashaynu kusoo aragnay qaybtii koowaad markaynu slide-ka sharxaynay introduction to MVC-ga markaynu sharxaynay haddaba si aynu u sameyno controller waxaan nidhi folderka controllerka markaad empty soo doorato wuu maran yahay ku dhufanaysaa right click kadib waxaan leenahay add dabadeedna waxaynu dooranaa halkay ku taallo controller markaynu controller dooranno waxaynu haysanaa saddexdan option optionka koowaad waa inaynu dooranno MVC controller maran oo gudihiisa hal saambal mooyaane wax kale aanay ku jirin inaynu dooranno MVC controller isagoo inoo wada qorqoraya masariski iyo ka saddexaad waa inaynu dooranno MVC controller inoo sameynayo viewgii iyo entity framework marka waxaynu dooran doonaa empty-ga ah inaynu dooranno MVC5 controller empty kadib waxaan leenahay add marka aynu add nidhaahno waxaynu na weydiin doonaa inaynu magac u bixinno controllerkeeni tusaalahaan waxaynu u bixinaynaa la yidhaha registration markaynu nidhaahno waxaynu leenahay add markaynu add nidhaahno waxaa lagu dari doonaa folderba viewgana laynoogu dari doonaa la yidhaahdo registration waa kan waxaa laynoo abuuray controllerkeeni sidoo kale waxaa laynoo abuuray folder maran oo aanay hadda waxba ku dhex jirin waxna ku qorayn oo laynoogu dhex abuuray dhinaca viewgeena intaa markaynu samaysano haddaan hadda tagna controllerkeeni waa kan uu inoo furmay haddii uu kaa xidhmo waxaad keliya ta double click siisaa un markaad kala bixiso controllerkaaga ee folder controllerkaaga kadib waxaan ku dhufanaa classkan ee la yidhaahdo registration controller double click baad siin sanu kuugu furmaya halkan masad oo keliyata ayaa hadda inoogu jira wax viewgana ma haysano haddaynu markaa doonno inaynu kicinno waa inaynu marka hore hubinnaa markaynu tagno global.spx ee aynu root config-geena tagno ama aynu xaggan ka tagno root config-ga waxaad ka tegi karaysaa inaad kala bixiso folderka app start la yidhahdo deedna waxaan ku dhufannaa root config kadib markaynu xaggan tagno waa inaynu marka hore controllerkeena magaciisa u bixinaa si marka aynu soo kicno projectka u horeysa uu magaca controllerkeena uga soo baxo default ahaan waxaan leenahay registration dabadeedna failkeena ugu horreya waxa la yidhaha index intaa markaynu samayno kadib waxaynu soo kici doonaa projectkeena baan raan garaynaa saynu raan garayna waxaan leenahay projectkeena raan ama waxaad taaban kartaa control iyo F5 intaa kadib waxay noo soo baxaya noo soo kacaya browserkii deedna browserkeenu waxoogay markuu wareego waxa uu inoo soo celiyay jawaabtan waxa uu leeyahay view loo yaqaano index kama jiro faylashan soo socda viewgu tegey wuxuu tegey folderka le registration dabeedna uu ka soo waayey isagoo c# buu soo waayey isagoo VBA buu soo waayey isagoo wuxuu soo eegay indexku ka soo eegay xagga shareka haddana ka soo eegay waxaa la yidhaha index inuu ku jiro folderka shareka waa labada folder ee viewgeena marka la tago laba folder baa ka jira mid waa kii defaultka ahaa nidhi wuxuu inoo haynayaa layoutyadii kana waa kii aynu samaysanay controllerkeeni isagaa lagu horreeyey waa la soo waayey marka errorka haddaad aragto macnaheedu waxa weeyaan wax viewya maad samayn weeyaan view maad samayn haddaba sida viewga loo sameeya view markaad doonaysa inaad samayso waxaad ku dhufanaysaa action niserkaaga dhexdiisaad right click siinaysa kadib waxaan ku dhufannaa add dabadeetna waxaynu leenahay MVC-gaad dooranaysaa kadib waxaan leenahay add halkan markaynu joogno laba option ayaa jira inaynu samayno empty without model oo ah inaynu template nidhaahno annaga hadhow qorqoranayna controllerskayga sida inputyadii imagekii daytime control maxaa la yidhahdaa daytimekii oo kale oo calendarka ahaa maxaa la yidhaha browserkii wax kasta batamiskii everything haddaynu doonayno inaynu waxaan ka wadaa browserkii oo kii aynu sawirka imageka kasoo gelin waxaasoo dhan markaad doonaysa inaad samayso inaad adigu qorqorato iyo inuu isagu kuu sameeyo balse marka hore aad modelka kusoo wada sheegto number of propertieska ama variabladaad haysato ee loo samayn doono viewga marka haddaynu kan emptygaa ku dayno waxaynu leenahay add kama qaadayna tigta layoutka oo waxaynu doonaa templatekeena inuu inoo soo raaciyo deedna waxaan leenahay add markaad tiraahdo folderkeena registrationka waxaa lagu dhex sameeyey view la yidhaahdo
index.c#html markaynu intaan idhaahno magaca inoogu qoran waa maxay waa index waxa weeyaan waa index indexka markaa haddaynu hadda nidhaahno iyadoo bilaa debagina noo soo kaco oo nidhaahno folderka faylkaygii soo kac suu deg deg u soo kaco markaba waa kan hadda waxa errorkii lama soo celina maxaa laynoo soo akhriyey indexkeeni haddaynu imika qoraal ku qorro tusaale ahaan oo nidhaahno introduction to MVC kadibna aynu refresh garayno qoraalkeeni markaba halkan lagu soo bandhiga that means marka aad ku qorto shay viewga markaad wax ka bedesho uma baahnid inaad projectka dib u soo raan karayso laakiin haddaynu xagga C# wax ka bedelo oo tusaale ahaan controllerka aad wax ka bedesho idna waxaad doonaysaa programkii in la raan garay waayo process baa dhacaya mar haddaynu hadda viewgii samaysanay controllerkiina aynu samaysanay waa inaynu modelkii samaynaa si aynu modelka u samayno waxaynu tegaynaa folderkeena la yidhaahdo model aad folderka dushiisaad right click siin kadib waxaan leenahay add dabeedna waxaynu dooranaa class marka aad classka doorato waxaad halkan u bixin doontaa classkaaga magaca doonayso tusaale ahaan inaynu idhaahno student markaad try student waxaynu ku qori doonaa marka classkeena dhexdiisa propertyadii tusaale ahaan public integer id gets public string name iyo ka u dambeeya oo aynu ka dhigayno ageka public datetime age kadibna waxaan leenahay inta manoosab saddexdaa waxaynu ku samaysanay file ka hor marka haddaba inta aynaan isticmaalin modelka marka hore horta aynu aragno maxay ku kala duwan yihiin inaynu isticmaalo return type data type sida string ama integer ama kuwa inaynu isticmaalno iyo inaynu isticmaalno action resultka masterka la action result oo aynu nidhi xogtiisa wuxuu ku ritaan gareeyaa viewga walaynu kan hore tusaalaha ka horeyno tusaalahaan waxaan nidhi waxaad ii samaysaa message isagoo return type kadib xog baan halka kusoo celiya waxaan nidhi welcome to MVC framework waxaan kusoo gabagabeeyey semicolon kadib projectkaygii ayaan raan garayay maadaama aynu nidhi marka horeynu soo sheegnay in projectgeena laga soo kacayo bilowgaba registrationka ugama baahna halkan inuu inoo sii raaciyo /registration /something projectgeena waxaa toos loogu soo ritaan gariyay markiiba xagga browserkii haddaba waa inagii nidhi waxa uu wataa wax la yidhaahdo parameter optional sidee baan xog uga soo akhriyi karaa URL-ka oo aan ugu soo baas garayn karaya xaggan iyo controllerkayga URL-ka xog ma ka soo akhriyi karayaa oo ma keeni karayaa controllerkayga anigoo isticmaalaya optional parameterkayga sideen haddaba u isticmaali kareen waxaynu u baahannahay marka koowaad inaynu tagno controllerkii kadibna maxaa la yidhaha masterkeennan waa inaynu u samaynaa variable waa inaynu u samaynaa waxaan leenahay parameter baynu qoranaa string id same name kadibna waxaynu tegaynaa markaynu ka qorro waxaan leenahay waxaad noogu soo ritaan garaysaa inaynu idhaahno id-gayga waxaad noo soo raacsaa tusaale ahaan this is our first part of MVC tutorial number deedna halkaa soo gelino numberkii markaasaynu saa u samayno waxaan leenahay debug baynu ku samayna saynu aragno bal xogta siduu soo akhriya inaynu debug garayno kadib waxaan leeyahay projectkaygii ii raan garee deedna markiiba wuxuu i keenay haddaba inaan gedkii iyo kala sheegin iyo bosti halkan uu keenay waxa lay continue deedna waxaa lay soo kiciyey waxaa lay keenay halkan hadda xogtii waxaan leeyahay controllerkayga waxa la yidhaha registration masterkaygana waxaa la yidhahdaa index / deedna waxaan leeyahay number 1 kadib waxaan idhi enter dabeedna waxaan eegayaa in xogtii lagu soo akhriyey parameterkayga hadda haddaan eego idhaahdo view waad arkaysaa value waxa lagu soo akhriyey
maxaa la yidhahdaa barometerkeygii ayaa lagu soo akhriyay dabadeedna barometerkeyga wuxuu u baas garaynaya inuu ku ritaan garay xagga ivuga haddaan idhaahdo markaa maxaa la idhahda step over oon ku celiyo kadibna aan idhahdo go waxaa la soo akhriyay xagga valuegi haddaan soo geliyey halkana lagu soo display garay haddaan qoraal ka dhigi lahaa oon odhan lahaa number one oon string ka dhigi lahaa inter iyadana saasoo kale ayaa laygu soo akhriyay waayo marka laga tago magaca id aanu nidhi data typeka ahaa string deedna wuxuu noqday number one haddaan idhaha markaa neges kadibna idhaha sooka waa kan projectkeena wuxuu noqday qoraalkii inuu inoo soo display garay haddaynu bedelno data type oo aynu ka dhigno integer debugging kale aynu ka qaadno oo aynu deedna raan garayno markaba bay noo soo kacayaan haddaad aragto tusaale ahaan error noocan oo kale ah error kale oo kale haddaad aragto oo ku idhaahdo id-ga aad gelisay ee loo yaqaano barometerkaaga id-ga la yidhaahdo waana nullable type oo xogtii ma soo akhriyaya hadduu yidhaahdo sidee baa loo xaliyaa waayo haddaan hadda valuega gelino oon inter siino wuu soo kacayo laakiin haddaan valuega ka reebo oon inter siiyo errorka soo noqon anuu value siinin sidee buu aqbalayaa data typekeyga integer variableka ama barometerka la yidhahdo id inuu soo kaco ilaa xog waxaan ka dhigi doonaa nullable oo nullable si looga dhigo waxaan ku dari doonaa calaamadda question mark dabadeedna waan raan garayna markaad intaas samayso hadda haddii uu madhan yahay iyo hadduu xog haysta midnaba weydiinayo kadib waxaa leenahay inter haddaan hadda valuega ka masaxo oon inter siiyo iguma soo celinay wax error habka labaad ee xog looga soo baas gareeyo url-ka ee loona soo dhigo mvc-ga ee loona soo dhigo sorry controllerka loo keeno waxaa loo yaqaanaa iyadana kow si aynu xog uga soo baas garayno url-ka oo aynu u keenno controllerkeena waxaynu isticmaalaynaa labadan option kow inaynu isticmaalno optional parameter oo ah kii hadda aynu exampleka ku bixinayno iyo habka labaad oo ah inaynu isticmaalno wax la yidhahdo query string sidee haddaba loo isticmaalaya query string si aynu u isticmaalno query string waa inaynu halkan ku qoraa query string halkii aynu ka isticmaali lahayn optional parameterka tusaale ahaan haddaad kan isticmaasho nidhaahno mid labaad aynu raacino dabadeetna waa inaynu magaciisa sii sheegnaa parameterka labaad tusaale waxaan nidhi equal oo aynu dhahno concatenation macnaha xogta kusii daba qabo aan nidhaahno party of kadib waxaan qoranaa ereyga la yidhaha request oo isagu ah object kadibna waxaan raacin doonaa functionka waxaan raacin doonaa query string dabadeetna waxaan qori doonaa maxaa la yidhahda valuegii uu yeelanayay nameka uu yeelanayo marka barometerkeena tusaale waxaan idhi name dabadeetna projectkeena baan markaan raan garayay maadaama aynu nullable ka dhignay hadda wax error inooma soo baxay kow waxaan leenahay registration ka koowaad hadduu inoo soo baxay waxaan leenahay calaamadda question mark dabeedna waxaan qori doonaa variable namekii aynu soo samaynay query stringka aynu ku soo dhex qoray halkan aynu ku soo qoray exactly su magacan u qorayay ayaynu xaggana ku qoraynaa markaan intaa qorro waxaan leenahay equal dabadeedna valuegii ayaan raacinaa salaan inaano part one part two dabeedna waxaan leenahay inter waa kan wuxuu leeyahay inuu inoo soo display gareeyey xogteena hore ahayd number one oo one-kan ahayd valuegu inoo soo one iyo qaybtii dambe ahayd part one aynu xaggan ku qoray in laynoo soo display gareeyo haddii aynu u baahano inaynu isticmaalo individual parameterska sidaynu usii raacin karnaa mid saddexaadna waxaynu tegaynaa controllerkeenii waxaynu tegi doonaa masarkii dabeedna waxaan leenahay coma kadib waxaan qori doonaa string kadibna waxaynu leenahay tusaale ahaan address kadib saynu usoo display garaynaysna waxaan leenahay continent garee halkan concatenation dabeedna waxaan leenahay plus waxaan qoranaa markaa variablekeeni address kadibna waxaan leenahay projectkeeni baan raan garayna marka aad url-ka ku soo qorayso barometero kala duwan ka koowaad waxaynu nidhi isagu waa optional barometerki waa khasab inaynu iska qorno uma baahnayno magaca barometerkeena qorno ka labaad waxaynu qornaa calaamadda question mark
kadib waxaan leenahay name equal kadibna waxaan qoray part 2 ta saddexaad waxaan qori doonaa calaamadda aan kadibna waxaan qoraynaa markaa maxaa la yidhaahdaa parameterka magaciisu ahaa address equal waxaan leenahay hargeysa kadibna waxaan leenahay enter intiiba waa laynoo soo display garay haddii haddaba individual ama single values oo aynu isticmaalna parametrisna waa kasoo baas garaynaynaa maxaa la yidhaha url-keenna aynu soo gaarsiinay viewga kadibna aynu dib u display garaynay xogtuna intan ka ballaaran oo aynu list isticmaalayno ma soo display garayn karayna tusaale ahaan inaynu nidhaahno imka list kadibna string kadibna aynu nidhaahno lst new lst kadibna aynu halka ku qoranno oo masalan aan idhaahdo hargeysa burco berbera yacni magaalooyinkaasoo kale haddaan soo qaato oo kadibna idhaahdo igu soo display garee erarka uu soo saaray waxa uu leeyahay haddaad eegto erarkaaga implicit conversion weeyaanu maadaama aynu kan ku qoray listiguna uu yahay generic collectionska oo iyaguna kuwa si shaabta lagu soo qaatay u ahaa yacnihii isagu wuxuu ritaan gareeya string keliyaata markaa ma bedeli karaya bule waa inaynu idhahnaa conversion ku samee dot string haddaynu inta qorro hadda inooma soo saaray haddaan projectayga imika raan garay waa la soo baas-gareeyey laakiin value lama soo saarin maxaa loo soo saari waayo waayo xogta uu soo saari karaya waxaa individual parameter individual value buu isagu soo baas-gareyn karaya laakiin xogtan waxay ku jirtaa collectionska haddii ku jirtana had iyo goor xogta marka collectionska la doonaya lasoo display garay waxa la isticmaalaa loop waa inaynu markaa loop garaynaa si aynu u loop garayno maadaama kani loopkii meel lagu qoro aanu jiroonu view isagu ku display garaynayni waxaanu ku khasbanay markaa inaynu isticmaalo wixii loo yaqaanay action result inaynu qorro action result kadibna waxaan leenahay xogta waxaad noogu ritaan garaysaa viewga xogtaa markaynu viewga ku ritaan garayno halkan su-aal kale ayaa haddana inoo imanaysa su-aashaas waxa weeyaan hadda view baynu haysaa haddaan right click si oo dhaa go to viewgayna waa kan sidee baan xogta uga soo baas garayn karaynaa controllerkii inagoo listigan ku sidana dabadeedna aynu u keeni kareen waxaanu ku arki doonaa casharkeena soo socda insha allah